ninkan aad u jeedaan wuxuu gowracay hooyadiis macaan ee asaga dhashay. Wuxuu ku gowracay magaalada Kismaayo. Ninkan waxaa la soo warinayaa in hooyadiis ay dalka u keentay dhaqan celin iyo inuu u noqdo wiil toosan, balse wuxuu u abaalguday inuu dilo oo uu si arxan darro ah u gowraco. Hooyadan waxay raadinaysay wanaagga wiilkeeda iyo inuu ka taga dhaqamada reer galbeedka. Waxay rabtay inuu barta dhaqanka Islaamka iyo midka Soomaalida, laakiin asaga wuxuu ugu bedelay inuu dilo oo uu garan waayo wanaaggii ay hooyadiis la rabtay. Markan oo kale Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nimaad dhashay kuma dhalin, oo loola jeedo qofka adiga aad dhashay sida aad uga damqanaysid oo ugu naxaysid asaga kuuma naxaayo. Waa qof aad dhashay kuma dhalin. Hooyadii oo rabtay wanaaggiisa wuxuu ugu bedelay inuu nafta dhaafiyo. Haba dhaafiyee haddana si arxan darro ah ayuu nafta u dhaafiyey, yacni wuu gowracay. hooyadan Allah subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto. hooyo in la dilo iska daaye xitaa uma qalanto in hadal xun la dhaho. Allah subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto, jannatul firdaws Allah ka waraabiyo. hooyo waa naxariista dunida lagu haysto. qofka hadduu hooyo haystana adduunkan wax ka maqan ma jirto. laakiin dadka qaar oo hooyo haysto ay nasiib darro haystaa oo garanaynin nimcada Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku manaystay. qofka haddii uu wax walba haysto uu hooyo haysanin, wax u dhammaystiran ma jiraan. wuxuu haystana waxba uma tarayaan. hooyada agteeda waa meesha lagu dareemo naxariista iyo macaanka dunida. qofka hooyo haystana wax ka maqan ma jiraan. laakiin dunidan waxa uu nasiib xun qofka asagoo hooyo haysto isdhaafiyey oo dilay. waa nasiib darro midda ugu xun. ninkan walaalkeen ah hadduu xanuunsan yahay Allah caafiyo, caafimaad taam ah Allah siiyo. hadduu caafimaad qabana Allah subxaanahu wa ta'ala ha ku soo hanuuniyo jidkiisa toosan. kolayba qof dilay dembigiisa ma yaro. qofkii hooyadiis dilayna cuqubo iyo dembi badan ayaa meel u taalo. laakiin wax walba qadarta Ilaahay ay ku dhaceen. haddii uu ninkan dhib haystay ama maskaxiyan u xanuunsanaa, Allah subxaanahu wa ta'ala ha caafiyo, wadada xaqa ahna Allah ku soo toosiyo. haddii uu dembigan kas u geystayna kolayba asaga iyo Ilaahiisa ay u taalaa. laakiin hooyo cayaar ma gasho. markay muddo 30 sano ka badan koriimo, barbaarin iyo hagaajinta noloshiisa waqti gelisay, markii noloshii qurbaha ay ku noolaayeen uu nolosha kaga dhacay, kadib ay dalkii keentay si uu dhaqankiisa u hagaago iyo inuu mustaqbalkiisa tooso. inta noloshiisa ka dhiman inuu ugu abaalgudo inuu dilo uma qalanto hooyo. Allah subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto, jannadii firdawsana Allah ka waraabiyo.